gudihiisa iyo dabadiisaba iyo xasan maxamed cabdi xarbi oo u diyaaray hay xasan aad baad mahadsantahay ismaaciil cali ducaale. بسم الله الرحمن الرحيم. ورك مدحديسي مدحوينها جمهورية سوماليلاند مدن موسى بيحي عبدي iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa safar shaqo ugu baxay dalka Jamhuuriyadda Djibouti. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland mudane Cali Xasan Maxamed Cali Marreexaan ayaa ka hadlay 10 sano guurada idaacadda Quraanka Kariimka ee Radio Hargeysa. ciidamada Israa'iil ayaa ka hadlay markii ugu horeysay saraakiil iyo ciidamo laga laayay dagaalada ay kula jiraan ururka Xamaas ee ka dagaalamaya marinka Gaza ee dhulka Falastiin. dowladda Ruushka ayaa sheegtay inay soo riday diyaarad aan duuliyaha lahayn oo ay ciidamada cirka ee Ukraine doonayeen in ay ku duqeeyaan magaalada Sevastopol ee gobolka Crimea. intaasi dhageystayaal waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon haatan noo diyaar garooba warkii oo fidsan. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa safar shaqo ugu baxay dalka Jamhuuriyadda Djibouti. war qoraal oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland isla markaana soo gaaray wakaaladda wararka Soomaaliland ee Solna ayaa lagu sheegay in ujeedada safarkan wafdiga madaxweynuhu hogaaminayo uu yahay in halka laga sii amba qaado wadahadaladii u dhaxeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya oo ka bilaami doona oo isla markaasna ku bilaami doona heer madaxweynayaal. safarka shaqo ee madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa muddo kooban qaadan doona waxaana ku wehelinaya wasiirada wasaaradaha horumarinta maaliyadda Dr. Saad Cali Shire, qorshaynta iyo horumarinta qaranka mudane Axmed Maxamed Diiriye Torno, arrimaha gudaha mudane Maxamed Kaahin Axmed, waxbarashada iyo sayniska mudane Axmed Aadan Buuxane iyo ergeyga gaarka ee Soomaaliland u qaabisan wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya Marwo Adna Aadan Ismaaciil oo iyadu dalka Djibouti kaga sii horeysa wafdiga madaxweynaha. wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland mudane Cali Xasan Maxamed Cali Marreexaan ayaa ka hadlay 10 sano guurada idaacadda Quraanka Kariimka ee Radio Hargeysa. idaacadda sala socotaan waxa la aasaasay 2013 ilaa iyo imika oo ay 10 sanadood gaarayso. waxay u socotaa ama loo dhageystaa si joogto ah 24 saacadood way socotaa. waxaa ka socda quraankii, waxaa ka socda tafsiirkii quraanka. marka waxa ay qaranka u ahayd sharaf weyn iyo cisi iyo karaamo in idaacadda Radio Hargeysa lagu soo kordhiyo idaacadda Quraanka Kariimka ah oo 24 saacadood minute ka mid aan ka baxaynin hawada ee ku jirta. adduunyada muslimka ah oo dhan markaad soo darto dhowr dal baa leh idaacadda Quraanka Kariimka oo joogto ah oo 24 saacadood baxda. dhowrka dal baynu ka mid nahay waana wax Ilaahay loogu mahadnaqo. ummadeena oo dhan oo muslina 100% waxay u tahay khayr iyo cibaado iyo insha Allah Ilaahay aynu kaga rajeynayno inuu khayr iyo dambi dhaaf iyo horumar wadankeena ku gaarsiiyo. qowlkiisa aynu weyneynayno ee 24 saacadood baxay. sidii uu rasuulku Alayhi salaatu wasalaam sheegay wuxuu yiri khayrukum man ta'allama al-Qur'aana wa 'allamahu. dadka waxay idinku khayr badan qofka quraanka bartay isaguna dadka sii bara. marka dawlad ahaan iyo wasaarad ahaanba waxa runtii sharaf nooyna ay tahay Radio Hargeysa meel dadka quraanka laga barayo oo tafsiirka quraanka laga barayo oo ummaddu ay ka dhageysanayso. sida xadiis kale uu sheegay rasuulku Alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri man qara harfan min kitaabillahi فله به حسنة والحسنة ب10 أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. سيدا ساق قرآنك خير كيسة ورسولك إنه شيء قفك حرف كتابك إلهي أخريها وحوليه هي حسنة حسناتنا وحاي
leedahay 10 laab baa la isugu dhuftaa sida xadiis kale inoo sheegtay iyo xadiiskaniba rasuulku wuxuu alayhi salaatu wasalaam alif laam miim oran maayo waa xaraf laakiin alif waa xaraf miimkuna waa xaraf laamkuna waa xaraf marka dadka quraanka bartay ku xiran iyo dadka tafsiirka ka baxa dhageystaba faraha badan leh iyagana oo hambalyeynaya duruusta ku xiran waxaan halkan ugu hambalyeynaya shaqaalaha joogtada sida joogtada uga shaqeeya iyagu u gaara idaacadda quraanka kariim uu madaxda u yahay rafiiq rashiid bullo iyo culimada kale iyo madaxda kale kala shaqeysa iyo dhammaan shaqaalaha idaacadda iyo kuwa farsamada ka caawiya inay 24 saacadoodba ay idaacaddaas hawada ku jirto baxdo annagu wasaarad ahaan iyo wasiir ahaanba waxaan ku dadaalaynaa in idaacaddaas sii ballaarato meelo kalena la gaarsiiyo iyadoo 8 goobood oo imka dalka ka mid ah 8 magaalo waaweyn ay FM-ta idaacaddu toos uga baxdo inaan sii ballaarnayna ku rajaynaa haddii la ka dhigo mas-uuliyiinta gobolka saaxil iyo kuwa degmada berbera ay wehelinayeen mas-uuliyiin ka socday shirkadda DP World iyo haamaha kaydka shidaalka ee magaalada berbera ayaa kulan la qaatay taliyaha ciidamada dabdamiska jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyo guuto Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili oo safar shaqo ku jooga magaalada berbera waxa uu wareen kulankaasi ka hadlay kana warbixiyay waxyaabaha ay ka wada hadleen maamulka gobolka saaxilka degmada berbera mas-uuliyiinta DP World iyo haamaha kaydka shidaalka ee berbera iyo taliyaha ciidamada dabdamiska Soomaaliland maayirka magaalada berbera Cabdishakuur Maxamed Xasan Cidin waxaanu tilmaamin in taliyaha ay ka wada hadleen sidii ku talagal looga yeelan lahaa hantida badan ee qaranka ee taalla magaalada berbera sida haamaha shidaalka oo waqtigan qaar badan ay ka dhisan yihiin magaalada berbera iyo bakhaarada raashinka ganacsatada dalka ayuu u soo jeediyey maayirka magaalada berbera inay ku talagalaan badbaadada hantidooda marka ay samaynayaan maalgashiga waxaa iguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah shirkadihii kulankaasi ka qayb galay waxaanay uga mahad celiyeen taliyaha ciidamada damdamiska talooyinka uu ka siiyey nidaamka uu noqonayo damdamiska ay magaalada berbera u baahan tahay waqtigan waxaasna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka saaxil cali cabdilaahi cali case waxaanu sheegay in ay ka maamul ahaan ka codsadeen taliyaha ciidanka damdamiska inuu qiimeeyo nidaamka damdamis ay magaalada berbera yeelan karto taas oo ay ugu mahad celiyeen taliyaha guud ee ciidamada damdamiska jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in kulankan yahay kii labaad ee madaxda gobolka saaxil ay la yeeshaan isagoo u soo jeediyey ganacsatada dalka gaar ahaanna kuwa gobolka saaxil in mar walba oo ay sameeyaan maalgashi raaciyaan wixii uu maalgashigooda ku badbaadi lahaa taliyaha guud ee ciidamada damdamiska sareeyo guuto Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili waxaa kaloo uu sheegay in aan laga fikirin khatarta dabka ee mar walba laga fikiro arrimaha kale ee xatooyadu ka mid tahay waxaan u soo jeediyeen mar walba laga fikiro khatarta dabka waxaanu taliyuhu sheegay in ciidanka damdamiska iyo maamulka gobolka saaxil iyo ka degmada berbera ay sanadka 2024 ay qaban doonaan hawl xoog badan oo dhanka damdamiska ciidamada Israa'iil ayaa ka hadlay markii ugu horeysay saraakiil iyo ciidamo laga laayay dagaalada ay kula jiraan ururka Xamaas ee ka dagaalamaya marinka Gaza dhulka Falastiin war-saxaafada ay soo saareen ciidamada Israa'iil ayaa lagu sheegay in dagaaladii ugu dambeeyay ciidamada Israa'iil ay la galeen ciidamada ururka Xamaas lagu dilay 3 askari oo laba ka mid ay yihiin saraakiil ciidan halka sidoo kalena lagu dhaawacay 3 askari oo kale kuwaas oo dhaawacyadoodu culus yihiin war-saxaafadeedka ka soo baxay ciidamada Israa'iil ayaa lagu sheegay in labadii cisho ugu dambeeyay ciidamada Israa'iil laga dilay 12 askari ciidamo gaariya iyo waliba saraakiil aanay tiradoodu sheegin dagaalka ka socda marinka Gaza ayaa wararku sheegayaan in ay ku burbureen 60% guriyihii magaalada Gaza iyadoo ay sidoo kalena ay ka barakaceen dad gaaraya ugu yaraan 2 milyan oo qof waxaana jira cunto yaraan biyo nadiif aan ahayn oo asla markaasi laga helayn iyo waliba dawo la'aan geesta kale ciidamada Israa'iil ayaa duqeymo ka fuliyay goobo ka mid ah dhulka daanta galbeed ee dhulka Falastiin waxaana duqeymahan ku dhintay 7 qof sida ay wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiin sheegeen magaalooyinka ciidamada Israa'iil duqeeyeen waxaa ka mid ah magaalada Ramallah ee caasimadda waqtigan u ah maamulka Falastiin oo uu hogaamiyo madaxweyne Maxamuud Cabbaas waxaa kaloo ay ciidamadu duqeymo ka fuliyeen xerada qaxoontiga ee Rosaret oo ay ku dileen 7 qof dhanka kalena hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in 10,000 oo qof ay ka yaaceen
carareen guryahoodii bartamaha qase iyo weliba khan yunis si ay uga baxsadaan duqaymaha ciidamada israa'iil ay ka wadaan deegaanadaasi. tirada dadka reer falastiin ilaa hadda ku dhintay dagaalada ka socda marinka qase iyo deegaanada ku xiran ayaa gaadhaya 21,100 qof, halka dhaawacuna uu gaadhayo 55,243 qof oo dhaawaca. waxaa iyaduna kor u kacday tirada dhimashada ee yuhuudda oo gaadhay 1,139 qof, waxaanay korodhay dhimashadu kadib markii ay weeraro cusub dagaalyahanada xamaas ay ku qaadeen gudaha dhulka falastiin ee yuhuudda islamarkaasi lagu dagaameeyey. 8,800 oo ka mid ah dadkan ayaa ah caruur, halka 6,300 ay yihiin haween dadka ku dhintay weeraradaasi. dhinaca kale ciidamada israa'iil ayaa la wareegay lacago tiro badan oo yaalay dukaamo kuwa sarifka ah oo ku yaala gobolka daanta galbeed ee dhulka falastiin. ciidamada ayaa bartilmaamsaday goobahan sarifka lacagaha iyagoo jabsaday khasnadihii ay lacagahaasi ku jireen, waxaana lacagahaasi ugu badan islamarkaasina lagala wareegay goobo sarifo islamarkaasina ku yaala magaalada raamalla ee xarunta gobolka daanta galbeed ee falastiin. lacagaha ay ilaa hadda ciidamada israa'iil la wareegeen ayaa tiradooda lagu sheegay $2.5 milyan. ciidamada ayaa qarxiyey dukaamadan iyo khasnadihii dhex yaalay si ay ula wareegaan lacagahan, siday sheegeen dad goobjoogayaal ah oo ku sugnaa goobaha falalkan ay ka dhaceen. dowladda ruushka ayaa sheegtay inay soo riday iyaduna diyaarad aan duuliyaha lahayn oo ciidamada cirka Ukraine ay doonayeen inay ku duqeeyaan magaalada Sevastopol ee gobolka Crimea. gudoomiyaha magaalada Mikhail Razafoj oo warbaahinta maxalliga ee dalka Ukraine la hadlay ayaa sheegay in ciidamada difaaca cirka Ukraine iyo weliba nidaamyadoodu ay ku guuleysteen inay soo ridaan diyaarad noocan duuliyaha lahayn oo dul martay badda u dhow magaaladaasi. gudoomiyaha magaaladaasi ayaa sheegay inaanay jirin wax khasaara oo diyaaraddaasi geysatay, waxaanu intaasi ku daray in lagaga hortagay khasaarihii ay maaganeed inay geysato. dhanka kalena warbixin kooban oo ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigga ruushka ayaa lagu sheegay in khasaaraha soo gaadhay ciidamada Ukraine uu gaadhay 670 dhimasho iyo dhaawac isugu jira dagaaladii ugu dambeeyey labada ciidan dhex mara. warbixintan ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada Ukraine laga soo riday diyaarad helikabtar ah oo nooceedu yahay Mi-8 iyadoo oo la fashiliyay 17 weerar oo ciidamada Ukraine ay ku qaadeen fadhiisimo kala duwan oo ciidamada ruushku leeyihiin 24 saacadood ee la soo dhaafay. geesta kalena afhayeenka ciidamada cirka ee dalkaasi Ukraine Yuri Ignat ayaa beeniyey jiritaanka war uu qoray wargeyska Newsweek oo sheegay in ay dowladda Ukraine heshay difaacaddii ugu horreysay diyaaradaha F-16. war qoraal ah oo Ignat uu soo dhigay boggiisa Facebooka ayuu ku sheegay in aanay waxba ka jirin wararka sheegaya in ciidamada cirka ee Ukraine ay heleen diyaaradaha Mareykanka lagu farsameeyo ee F-16, isagoo sidoo kalena beeniyey in aanay gudaha dalka Ukraine joogin diyaaradahaasi. waxaanu meesha ka saaray wararka kale ee sheegaya inay ka qayb qaateen diyaaradahani burburinta 6 diyaaradood oo laga soo riday ciidamada Ruushka. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa isaguna markii ugu horreysay ka hadlay weerarada ciidamada Mareykanku ay ka fuliyeen dalka Ciraaq, isagoo sheegay in ay uga gol lahaayeen ka hortagga Iiraan iyo kooxaha hubeysan ee ay taageerto. ciidamada Mareykanka ayaa dalka Ciraaq ka fuliyey weerar maalintii Salaasadii, weerarkaasoo lagaga jawaabayay weerar ay kooxaha Iiraan ay taageerto Ciraaq ku sugani ay ku qaadeen koox ay ku jiraan ciidamada Mareykan ahi, waxaana weerarkaasi ku dhaawacmay 2 askari oo Mareykan ah. madaxweynaha Joe Biden ayaa warqad u qoray oo u diray hogaamiyaasha sarsare ee Koongareeska Mareykanka waxa uu ku sheegay in weerarada ay ciidamada Mareykanku ka fuliyeen gudaha Ciraaq looga dan lahaa in laga hortago weerar ay Iiraan iyo kooxaha ay taageertaa ay ku doonayeen in ay ku carqaladeeyaan danaha Mareykanka iyo saaxiibadiisa. ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena oo la leeyahay kadib markii roobab mahigaan ay ka da'een magaalada Bukavu ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. waxaa iyaguna jira dad kale oo ku dhintay deegaano kale oo ka tirsan dalkaasi, sida ay caddaysay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi. waxaana ka mid ah meelaha kale ee roobabkani khasaaraha ka geysteen caasimadda koonfurta Kivu oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 2 milyan oo qof. 19 qof oo kale ayaa iyaguna ku dhintay deegaanada Bukavu, halka 5 qof oo kalena ay dhaawacyo ka soo gaadheen kadib markii ay qaadeen biyaha webiga, kuwaasoo waxaana ku jira dadkan 11 qof oo isku qoysa. deegaanka Kananga ayaa isna ay ku dhinteen ugu yaraan 22 qof kadib markii roobabka mahigaanka ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ka da'aya ay sababeen dhulgo iyo weliba guryaha oo ay qaarkood dumeen. dadka ilaa hadda ay wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo xaqiijisay in ay ku dhinteen roobabkan mahigaanka ah ee dalkaasi qayb ka mid ah ka da'ay ayaa tiradooda guud noqonaysa
56 qof. warkii aad ka dhageysanayseen raadiyo Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland khiyaarta qiimaha iyo qadarinta wacan ee hawada naga dhageysanaysay waa naga intaasi baahintan duhurnimo maanta warkan warka xiga hadduu rabbiga ogolaado saacadu markay soo gaadho 3 galabnimo ayaa dhegeysan doontaan wararkan iyo warar kale ee nagu soo biira qadar baafina Sucaadi Axmed Biixi